marka koowaad sida la idin sheegaba waxaa laga yaabaa si fiican inaan liiga garanaynin marka waa ninka magacyada badan oo muhiim qoloshu sheegay aad arkaysaan marka barasho wacan waana idin salaamaya muhiimada ugu koowaad horta taas ay ahayd bal inaan isbarano repermission soo aragno baahidooda indhaheen aan ka soo qaadno ayay ahayd muhiimada aan u imaanay maanta permission midda labaad baahida waana mid aan arkahaynay iyo mid nolol sheegay biyaha waa nolol biyo meel haday jirinna nolol ma jirto ceelkii haddii la idin sameeyey oo xoolihii iyo maaragtay dadkiiba ay biyo ka helayaan laakiin way ku dheer tahay sidaad sheegteen gabdhihii deganaa magaalada laakiin dhibka jira waad ogeedeen ceelka la qoday ee aan la bixinin ama lacagtiisa la siinin ninkii qoday marka waxaa la lahaa ooda si u koraysaa loo kala qaadaa ma ceelkii baan bixinaa masatu cusub baan qabanaa marmar waad ku yara wareeraysa laakiin waxaa idin sheegayaa waxaa ila socdaa chief officergii u xil saarnaa ee arrimaha biyaha Ahmed Garaad waad maqlaysa baahida la sheegayo magaaladani sidoo sheegay Ahmed qolosho waxaan rabaa inuu amarka halkan ka qaato waxay ku wanaagsan tahay ama aan ku faraxsanahay sanad lacageed cusub ayaan hadda bilaabaynaa bishan 7 budget cusub ayaan oo bilaabanayo marka barmish arrinka inta yar pipingka mashiinta soo la paygareeyo wixii laga qaban lahaa wixii inoo qabsoomi karo baahida wadanka oo dhan ay taallaa in la sameeyo insha Allah midda labaad waxaa nala socdo wasiirka caafimaadka waxa waaye Ismaaciil Sheekh saaki 3 saac ilaa taqriiban markii la aqamayay salaada jumcaha oo 12 iyo barka waxaan ka hadlahaynay arrinka caafimaadka iyo isbitaaladani ku yaalaan magaalooyinka ka soo baxsan magaalada Wajeer sidii shaqaalahooda wixii joogay oo ka soo tagay loogu celin lahaa kuwa kale oo aan joogin dhaqaatiirna loo geyn lahaa kuwa cusub marka dhagiisna uu ku maqlaayay saakina presentationka inoo sameynayeen waxay ka mid ahayd meelaha dhaqaatiirta u baahan permission marka Ismaaciil arrinkaas waad maqashay sida ugu dhaqsi badan daawooyinka isbitaalka kulli wuxuu ku jira isbitaalada daawooyinka loo keeno laakiin waxaa laga yaabaa in ayan anficaynin ama ay maaragtay ay enough ahayn ay kaafinaynin macnaha mar dhow isbuucan hadda bilaabanaya insha Allah waxay inoo imaanayso daawada Kemsa ee lacagaheeda ama deemiya inagu lahayn hadda aan bixinay marka waa loo keenay sidii loogu keeni jiray laakiin Ismaaciil waxaan u sheegayaa haddii waad ogtihiin population commission inuu badan yahay in loo soo kordhiyo dhakhtarkina loo soo celiyo anaga waxaa shaqadeena ay tahayna 100% waa biyahaasi iyo caafimaadka educationka waxaan ka leenahay bas nurseryga primaryga iyo secondaryga iyo shaqooyinkaas tabaruma inoo inaga weeyeen laakiin insha Allah wiil dadaal badan oo soo doorateen waa inoo jooga marka insha Allah anaga asagoo ku kabana educationka naftiisa wixii laga qaban lahaana waan eegaynaa